kulanti wanaagsan waa barnaamijkii barbaarta iyo beeraha oo aynu maanta ku eegayno nabaad guurka ku yimaada carrada. maxay tahay carradii haddaan cagafta geliso burburiso iyadoo qallalan roobka dabayla ka horeysa dabayshaas maxay qaadaysaa nafaqadii bay qaadaysaa maxay tahay nafaqadu waa qaybta kore adaa marka inta burburisay waxaad u diyaarsan dabaysha maxaa la rabaa markaad falayso yeysan noqonin beertii oo qallalan inaad fasho. waxaa marti ku ah sayntiste ku takhasusay carrada waa barasare cabdiraxmaan aadam weli oo shahaadada heerka koowaad ka qaatay jaamacadda jaziira ee dalka suudaan, halka heerka labaad ee masterka uu ku diyaariyey Western Cape University oo ku taala Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. ku soo dhawaada barnaamijka barbaarta iyo beeraha. balame barbare biyo walehele ambaxne badarki abuurne berihi anfalne. dayrtii ayaa la guda galay, roobabkiina waa ay curteen. wax weyn ayay uga dhigan tahay beeralaydu inay curteen roobabkii dayrta, waxaana mar kale cagafyo la soo joojiyey dhulkii tacabka. beeralayda qaarna waa ayaanba qaateen si ay u carro falaan. ciiddu waa halka abuurka lagu rido, midhuhuna uu ka soo dhasho, nafaqada iyo biyuhuna ay xididadu ka nuugaan. si haddaba aan looga waayin howlahaasi muhiimka ah ay carradu qabato, maxay tahay inay beeralaydu ay yeelaan? shukuur aad u mahadsan tahay adiga iyo tiimka kula shaqeynayaba waa ku mahadsantihiin. طبعا barnaamij oo aad muhiim u ah waxaa jira in laga hadlo ugu yaraan horta bal beeraha iyo wixii la halmaala ama cilmiga beeraha. barnaamij adag oo xoogan oo aad muhiim u ah, markaan isku dayihiinu aad u fiican yahay, waana fiican tahay dokumentiya ka diyaarisaan oo aad habeysaan. aad taas aad ka mahadcelinaya, ku mahadsantihiin. waxaa la dhahaa mararka qaarkood qolyaha oo beeralayda طبعا waxay u baahan yihiin wacyigelin badan u baahan yihiin. mararka qaarkood iyaga waxay sabab u yihiin inay dhulkooda nafaqada uu ka dhinto iyagoo sabab ah oon garasho la'aan keentay. waxaa la rabaa beerta laba xilli waay. xilli wax ku adiga hadda beeraheena adduunka waa iyagoo joogto waay. laba xilli hadda beeraheena waa mar uu dalagii kugu abuuran yahay iyo mar aad goosato. tusaale ahaan kan mar geliya kugu abuuran ama masago ama wixii wax rabaa noqdo waxba kugu abuuran marna waad goosatay. waxaa jira markaa xilli u dhaxayso labada xilli oo ah jilaalka oo kale. maxaa yeelay inaga beeraheen inta badan kuma tiirsano haddii laga reebo kuwa webiyaasha laga reebo ku hareeraysan, inta kale ma ku tiirsano waraab. حتى كو ورابك لفتودا xilli waxa jirta webigu ma ku yareeyo intooda badan qaarkood way sugaan. okay beerta markaad goosato galleyda goosatay ama masagada goosatay ama digirta goosatay, markaad goosanayso waxaa muhiima beerta inaad xaalufinin. markaad jarayso galleyda ama masagada goosanayso ama digirta, yani in xididka la soo siiba maaha. haddaad xididka soo siibto waxaa sabab u tahay in beertaadu ka dhimato. say u dhiman waxay u dhimanaysaa carrada. waxaan idhi qaybta ugu sarreyso waa nafaqadii. nafaqadana markaa waxay u dhimanaysaa, waxay u baahan tahay wax difaaca. yaa difaacaya? geedkaa difaacaya. wuxuu ka difaacayaa roobka iman doona, dabaysha, kulaylka, intaasuu ka difaacaya. waxaa laga rabaa adii markaad jarayso xididkaa siibin, dhaxda hoos ka jardaa rabto, ugu yaraan reeb jiridda iyo intii la halmaansha. maxaa yeelay markaad dhaafto jiriddaasi waxay haysaa carradii bay isku haysaa. carraday ku haysaa, horta waa carradii haynaysaa. ta labaad jiriddu waa noole, qayb ka mida waaye. hadhow iyada lafteeda burburaysaa. markay burburto nafaqada qayb ka mid noqonaysa. laba maxay yeelay
dalagaas kuu abuurnaa nafaqadu ka qaatay maxaa la rabaa marka intan gaabkan inay nafaqadu ku soo laabato waxaa ka mid a marka waxay ku soo laaban kartaa jirriddaa dhaaftay caleemihii ka daatay hadhaagii ka hadhay waxaasoo dhan waxay keenaysaa inay dib u burburaan oo dib ugu noqdaan nafaqadii xilliga soo socda marka geedkaad ku abuurto wax fiican kaga soo baxaya maxaa laga rabaa marka jirridda u dhaaf caleenta u dhaaf waxaasoo dhan waxay u tahay laba si cuntana way u noqonaysaa oo organismka maxay samaynayaan iyaga laftu maxay samaynayaan way ku sii noolaanayaan wayna burburinayaan dakow laba ta kale waxaa la dhahaa waa difaace waxay ka difaacaysaa maxaa yeelay roobka dhibcihiisa waaweynka waxay burburinaysaa carrada marka carrada burburiso kadib daadkaa qaadaya carradaas markaa ka baxda beertadan waa nafaqadii meel cilaa kuu dhacaysa marka waxaa laga rabaa marka war ka horta waa nafaqadaadii oo dhulka dib ugu soo laabanaysaa laba ay kuu difaacaysaa saddex organismkii ka shaqaynayay oo shaqadan qabanayay ay u tahay cunto laba qaleylkii ka ilaalinaysaa maxaa yeelay haddaad jarto qaleyl bay noqon dabaysha caada ku dhacaysa carrada waxay noqonaysaa qaleyl dabayshaa qaadaysa inambar aan tagno bilcaantii aan la baashaalne balwa aan tunnaba la dheelno kuma baanan karne aan isbarno inan beer falano aan ku baahi baxne aan isbarno inan beer falano aan ku baahi baxne nabaadguurka carrada ayaa ah dhibaato weyn oo uu wajahayo dhulkii tacabka wuxuu sababay nafaqadii oo ay ciiddu lumisay wax soo saarkiina waxa uu noqday mid caato ah nabaadguurku waxa uu ka yimaadaa saddex midkood oo kala ah dabaysha biyaha iyo falka qalabka culus la adeegsanayo ee lagu gidgidinayo ciidda carrada marka ay waxba ku beernayn oo ay qaawan tahay waxaa dabaysha u sahlan in ay si fudud u qaado oogada sare ee ciidda oo ahayd halkii ay nafaqadu ku suntanayd nabaadguurka biyaha ayaa ah marka carradu ay qaawan tahay robabka xoogga lihi oo inta oogada ciidda dhibcaha duleeliyaan u sababa daadad mararka qaar boholeeya halkii galleyda iyo masagada lagu dhigi lahaa dayrta ama guga qiyaaso la sameeyey labada waa biyaha iyo dabaysha waxaa lagu ogaaday in sanadkii 150,000 oo hektar inay ka nabaadguuraan dunida oo dhan afrika 700 oo milyan oo tan oo carro ah ayaa ka duusha oo bacrimisa Amazonia si haddaba loo baajiyo nabaadguurka carrada ku yimaada waxaa la ammaanay in la isticmaalo nidaam ilaalinaya ciidda oo loo yaqaano soil conservation nidaamkan waa mid aan marna qaawinayn ciidda qarin ayaa daboolaya carrada faa'iidooyin badan ayuu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah nabaadguur ayuu carrada ka dhowrayaa biyaha ay ciiddu cishanaysaa oo uumigii dabool ayaa ka xigsaday kharashkii cagafta ee arbushku ku jiray ayuu habkan baajinayaa wax soo saarkii ciiddana waa u kordhayaa waxay sameeyeen beeraleydu idana oo beerta oo disha xilliga markii loo diyaar garoobayo abuurka beerta waa la falaa waxay falaan beertii ama carradii oo qaleyla maxay keenaysaa marka haddii iyadoo qaleyl cagafta geliso way burburaysaa okay waxay la mid tahay marka in aad u diyaariso inay si fudud carradii ama nafaqadii kor kaaga baxdo waxay la mid tahay waa adiga intaad soo qaado galley aad geyso makiinaddu kaaga soo dhigto soor ama burxi la mid ah aad meel bannaana ku shubto aad kala bixiso maxaa sugaysaa dabaysha qad macnaa waxay tahay carradii haddaad cagafta geliso burburiso iyadoo qallalan roobka dabayla ka horeysa dabayshaas maxay qaadaysaa nafaqadii bay qaadaysaa maxaa yeelay nafaqadu waa qaybta kore adaa marka intaa burburisay waxaad u diyaarsay dabaysha maxaa la rabaa markaad falayso yeysan noqonin beertii oo qallalan inaad fasho wax yar oo qoyaanoo meel dheer ah ayaa laga dhigaa kadib waa la falaa waxaan lagu gartaa
يعني maxaa la sameeyaa caradaasaa laga faagaa waa la qaadaa kadib maxaa la sameeyaa gacanta xoogaa lagu loo cadaadiyaa waa la sii daayaa haddii carada isku dheganaato gaar ahaan dhoobada waa dhib badan tahay maana caradaas lama falo idan dhib kale keentaa maxaa la rabaa markaa haddii gacanta ka sii dayso markay daadato markaasoo kale fiican almuhim waxaa la rabaa caradoo qalalanna inaada falin caradoo qoyan oo zaad u qoyan inaada falin labadaasba laba mushkila keenaan labadu waxay keenaan carada waa dilaan erosion labada midna roobka u sahashaa daadka inuu qaado midna waxay u sahashaa dabaysha marka waxyaalahaas oo wax ka mid tahay u baahan tahay in looga badbaado si oo ay sheegay u dhicin nabaad guurka carada maxaa yeelay caradu waa raasamaalka uu qofku haysto waa maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa beerta ama caradu si fudud way ku qaadmi kartaa laakiin waxaa la yidhaahdaa 10 mitir ma sentimitir ilaa waxaa la yidhahdaa 2 ilaa 10 ugu badnaan weliba 10 aad u badanta 2 sentimitir oo caradaas organic in la soo celiyo 10 sano qaadanaysa saadara marka in la soo celiyo waqti badan iyo dhaqaale badan u baahan tahay laakiin inaad ilaashato way ku dhib yarta haddaa markaa iska disho oo iska dilkana waxaa ka mid ah waxyaalahan uu qofka beeraleydu samaynayo adayaasha ka mid ah yani cagafta in la falo iyadoo beertu qalalan ama iyadoo qoyan cagafta la geliyo ama la xaalufiyo waxyaalaha xaalufinta waxaa ka mid ah beerta markii la goosto xoolo lagu sii daayaa xaalufinta ka mid ah maxaa yeelay waxa la yiraahdaa xooluhu horta waxay ka guranayaan dushii sare oo caradii difaaci lahayd nafaqana u noqon lahayd laba qoobabka weliba gaar ahaan lo'da iyo adhiga maxay sameeyaan way jijibinayaan okay carro qalashay oo la jijabshay maxaa sugi marka dabaysha qaad marka waxyaalaha waxay ka mid tahay marka u baahan in laga fiirsado ka mid tahay seen raasamaalku kaaga baabiyo waa fildi aada u baaxad weyn islamarkaana in la faaqido ay tahay bad aan xeeb lahayn biyo aan laga bixi karin iyo barri aan laga hoyan karin waa beeraha waxaanse jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo sidii uu nooga aqbalay waraysigan inaan ku casuunnay bala sare cabdiraxmaan aadan weli oo ah sayntiste ku takhasusay carrada islamarkaana wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha gobolka banaadir tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waa cabdishakuur ibraahim cabdi oo idinku dhaafaya nabadgelyo iyo tasho oo tacbo abuurne berihii anfalne anila ballame